بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo programkeeni ama barashadeeni Microsoft Word noo socotay casharkii afraad insha Allah marka sida caadiga ahayd markaad soo gasho Word waa blank marka laba shay un baa sameynaysaa inaad qoraal ku qornaa la soo baxdo oo aad tagto Windows buttonka markaana aad open tiraahdo kadibna faylkii meeshuu kugu jiray fiiri waxa soo khaanada meesha yaala marka kugu jiray waa inaad heshaa my document hadda intaas khaanadood baa ku jira marka hore waxaan u niri khaanada Pro Word baanu samaysanay iyada ayaan tagayaa faylashaana igu jira waa kuwan casharadii wixii marka hadda casharadan kaan rabno waa furan karnaa laakiin hadda ma rabo inaan cashar furto waan ka noqonayaa laakiin cancel baan leeyahay xuma furanay sida beerti baan joogaa marka waxaan rabnaa caawa inaan samayno waxaan sameynaynaa insha Allah markii hore dhan waxaan ku soconay uun qaybtan home-ka ah inta standardka guud baan joognay numbradan waa baranay sida bold bulletiska iyo italiga iyo waxaan boldgan iyo waxaan paragraphska sida loo bahalkiyay laakiin caawa waxaan sameynaynaa insert baan wax ka isticmaalaynaa inserting functionska ku jira ama commandska ku jira nidaam hadda insert tagto waxa ku soo baxaya waxyaalahan badan marka laga sameyn karaa insert laakiin xoog waxaan saarnaa insha Allah table baan sameynaynaa waxaan rabnaa inaan sameyno table qoraal table ah kala habaysan oo for example waxbaad xisaabinaysaa ama waxaad qoraysaa list arday ama dad baad diiwaan gelinaysaa diiwaan amal oo kala sameynaysaa marka samaynta table ama shax qoraaleed enter oo soo degi marka meesha aad rabto cursor-ka inuu kugu soo baxo table-ka waxa ayaad sameynaysaa marka table baad ku dhufanaysaa ladaasi waa kan haddaan hadda u saaro mouse-ka u dul mariyo wuxuu soo saaraya halka kore hadaad eegto xisaab baa ka socota meesha kore 4/3 4/4 5/5 okay waxaan soo ka gudub just waxaan dhahnaa insert table saan u aragno waxaan rabnaa insert table waa ku dhufanaysaa waa kan number of columns waa dhinaca across-ka saas gudubka godadka ku soo baxaya number of rows-kuna waa inta hoose oo la degaya marka hadda 5 column oo korka oo hore oo korka ah saas u gudbaysa iyo waxa soo baxaya number of rows oo ah boosaskii wax lagu qoray columns-ka hoos iman marka aanu hadda ku darno halkaana calaamadda meesha falarta ku dhufanaysaa 4 row iyo 5 column baan ka dhigaynaa bal aan aragno soo ekaado waxaan dhahnaa inta ama sorry okay waka column waa kan this is column kan waa hadda column yani waa intaan waa halkaas aad ku qoraysaa ciwaanka for example waxaan leenahay number okay kadibna waxaan leenahay magaca kadib waxaan leenahay taariikh kadib waxaan halka ku qoraynaa maxaan ku qornaa magaca taariikh class ama class waa English ahaan u qorno class kadib waxaan halka ku qoraynaa macallin waxaan diiwaan gelinaa arday waka numberka magaca ardayga taariikhda ardayga la diiwaan geliyay ka soo qaad classka uu dhigto macallinka wuxuu dhigaa magaciisa okay marka halkaan tagaynaa waxaan ka bilaabaynaa 1 baan qoray waa kili garanaya magaca hoostiisa ardayga magaciisana qoraya okay say waxaan dhahaynaa Jamaal Axmed taariikhda la qoray annahna 20kii bishii 2004 classka uu dhigto A1 macallinkiisa waxa weeye magaca macallinka hoos qorina Jaabir baa macallin waka
marka waa shantii kalam waa kan 1 2 3 waka waa dhamaynay marka hoos soo degaysa marka waad kala garanaysaa kan hoose numberkan hoos gelinaya hadana number 2 baan qoraya kana kala garanaya magaca qofkaan qoraya marka hadana waxaan leeyahay kan waxa weeye farxiya daahir حتى oo kala garanaysa ama tab baa isticmaalaysa tab oo keyboard kugu yaala ayaa kuu sheegaya ayaa markaa ku boodsiinaysa oo boodaysa okay taariikhda waxaan leenahay kana labadii bishii labaad 2014 isaguna waxa weeye A1 macalinkiisa waa Jaabir weli tab haddaan inaad wuxuu kusoo bilaabay meesha hoose 3 halkan waxaan gelinaynaa guuleed Yusuf isagana waxaa la qoray 3dii bishii labaad 2014 isaga waa B1 kalaaskiisu waxaa macalin u ah أنا سهرة macalin u ah okay way iga buuxsamay soo maartay 1 2 3 4 kalamiski markaan qoray marka si ugu darno mid kale tab un baa taabanaysaa tab keyga ku yaala dhinaca bidix ee kore ee keyboardkaaga tab baa la yiraahdaa laba calaamad falaarada kala jeedu leeyahay ku dhufo marka day automatically isugu daraya soo maartay afar magaca afraad baan qoraynaa waxaan dhahaynaa Yusuf Maxamed magaca taariikhda la qoray waa bishii 3aad 2004 xagee waditaa A2 waditaa asag yaa macalin u ah xaliim tab waka kii shanaad baan ku daraysa saasaa u wadaysa wajid liiskii baa samaynaynaa tablekii baa noo socda tablekii baan wadnaa kana waa Yusuf Axmed waxaa la isagana afartii bisha 3aad laaskee yahay A2 yaa macalin u ah xaliim okay marka inaan joojiyaan raba halkan kaga baxo oo hoos qoraal ka sii wato maxaa samaynaysaa marka tab ma dhehaysid markan just waxaad kala garanaysaa meesha hoose oo banaanka ah oo ah screenka waka hoos soo degtay kor waxaan ku muujinay liiska ardayda iskuulka dhigata waka fadlan liiska ku dara mar walba wixii arday ah ee soo kordha waka wararka caadi halka ka sii wadanaysa halkan aad tagtay hoose hadda waa ku dari kartaa table kale oo waxaan sameynaynaa haddaan doono ku saabsan qalabka iskuulka buugaag inta taalla meesha yaaleen xafiiska waxaas baan samayn kartaa table kale halkaa ka bilaabtaa meeshaan aad waxaa samaynaysaa xagee tegaysaa insert sidoo kale insert table insert table sidoo kale number of columns 5 columns waa kii kore aan niri magacay meeshaan ku qornay marka hadda 4 baan rabaa kaliya rowska waa badsan karnaa mar walba 4 isagana ka dhig halkan waxa way fixed column width size-ka column-ka inta uu isu jiro fixed weeye mid waa auto macnaheedu hadhowdaan arki doonaa si loo bedelo marka waxaan leenahay okay waa kan table kale uu ii sameeyey number baan qoraya item boss nooca number 1 item buugaag carabi booska ay yaaliin waxay yaaliin qolka 5 qolka 5aad nooca waa 1 ilaa 3 classes ay yihiin nooca waxaan dhahaynaa 1 ilaa 3 class kooda ilaa class 3 waxaan iska sameynaa naga just waa sameynayna hadda waxaan waa iska waxa rabtaa adoo hadhow ku qoro buugaag carabi buugaag taariikh qolka afraad boos waxaan ka wada macnaa meesha yaaliin qolka afraad bay yaaliin kalaaskee loogu talagalay waxaa lagu saaray kalaaska afraad ilaa 8aad inay wax ku bartaan buugaagtaas 3 maxaa yaala macnaheedu computer
كمبيوتر سواء أو قرنه جيبوا يلا قولك كواد وحفيزك نوع كبود نوع كهرماله كسوع حفيز كلا وطلع كلا مامور كاسل أو مامور نمبر أفر هكذا وجاك جانيت جيبوا يلا قولك راد بيجي يلا كلا سيد لو طلع أفراد إلى سيد وكا تاب أنا هنا واسوعنيسا marka halka joogno waa ka baxaysa hadana waka qaybta shaxda kore waxay ku saabsan tahay alaabta iskuulka taala oo kala ah buugaag iyo qalab kale waxa rabto ku qor macna waxa rabto ka dhig soo table tay shax baan samaynaa shaxda wata okay now hadda naga maqan oo aanu samaynay ciwaan baan samaysanay ciwaanka aan weynayo bal kuwan waa ku hore u baranay Soomaali afar iyo toban ka dhigay kuwan gudaha ku jira fiiri waa sidoo highlight baa ku samaynaysaa day rowga kore ama leenka kore oo ay ku qoran yihiin magacyada ama madaxyada qoraalada sida number magac taariikh eed highlight garanaysaa fartooda waxaan ka dhigayaa iyagana afar iyo toban midiiba garanaysaa waliba bold baan ka dhigayaa si uu adkaadaan day si kale kuwa kale uga duwaadaan oo loo garto hoos hadaan u dego numberka itemka booska sidoo kale highlight gare xagga tag afar iyo toban ka dhig bold soo ekaysi garanaysaa kan ciwaankii way soo oo ku soo noqday bold ka dhig day fiir waka table hada shax baa samaysay maxaa dhiman marka wali ku dhiman hadda fiir automatically home ku iska imaanay halkan automatically home ku jooga mar walba marka maxaa hadda ku haray hadda waxa ku dhiman table-ladii markaa samaysatay table hadda waxa kama aanan bedelin just si on insert table dag waa noo soo waan nir afar shan baan dooranay kan kalamada yani ashanta waa kan number magac taariikh saas oo kale baanu dooranay moojid kana afar baan dooranay laakiin qaabku waa isku mid waxba hadda kala ma aanan samayn simple size-ku waa intii automatic way waxba kama aanan bedelin garanaysa hadda fiiri qoraalkaas hadda Jamaal Axmed Yuusuf hadda iraahday waa soo gedinaya wuu soo go'ay marka cilad badan ma jirto waa isbuuxinaya asaga isbuuxinaya ma gudbayo kan kale kalamkaasu ku egyahay rowgaasu halkaas ku egyahay hadhowdan baran doonaa sida loo weyneeyo sababtoo ah size-ka numberka iyo size-ka magaca inay isleekaadaan ma mawjid size-ka kan inta u dhaxaysa mid space-ka halkaas ku jirtay marka highlight-ka saaro halkan markaan saaro falaar baa isu bedelay haddaad arkaysid falaartaas marka waxay leedahay waa meesha size-ka bahalka laga sameeyo size-ka meesha laga hagaajiyo wey waxa size-ka waa ka hagaajin karnaa hadii kalena waxaan tegaynaa ka bax layout mi aha layout baan tegaynaa hadii kale layout layout baad tegaysaa number baan taagnahay soo maartid height-ka waa ka height-ku waa table rowga wey size-ka gudaha wey isaga hadda daan rabo inaan weyneeyo waa ka weynaanaya soo maartid kala baxaya wuu kala baxay quruxsanaan wey inuu kala baxo okay laakiin width height waa kala baxaas wey widthguna waa balaca marka numberka maadaama uu number uun aan ku qorayno oo numberka ugu badan uu 10 ama 100 noqon karo 3 xaraf ama 4 xaraf noqon karo u bato waa inaan ka yareynaa size-kiisa waa kan views halkana ka yareynaysaa 3.1 cm meeshuu ahaa waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo 2.2 cm baan ka dhigaynaa okay kan magacaan tegaya isaga xogaan ku daray waa kordhinaya si Yusuf kaas oo kale uu u soo noqdo Soomaali Yusuf dhag uu soo baxay because waa magacii waxaan kordhiyay size-ki taariikh waa yareynaya isaga markaan tago size-kiisa ay soo baxay waa layout baan joognaa width iyo height maadaama aan ku jiro rowga waka dhin asagana waa dhimaya ilaa aan israado soo dhin iyo 0.4 kiisa inta isaga class asagana waa ka
waa soo dhimaya asaga dhin dhin waa yaraynaya macnihi baan ka wada macallin baan imi macallinka xoogaa weyne jaabir un baan iska nidhi waxaa noqon karaa jaabir jaamac faarax noqon magaca badan waka sizeka kuwa kan hoose roowyadata naftooda say u quruxsanaadaan inta wada highlight garayso iyagoo dhan saa wada highlight garayso maad heightkaas marka kan wuu baaba'ay hadda maxaa jira because waxaan wada keenay kalamiskoo dhan baan highlight garaynay kalamiska sizekooduna isku mid maaha sidaa darteed wursigii laguma tusayo wajida maadaama highlight garan because mid baa yar mid baa weyn mid baa meel dhexaad sizekooda kala duwan sidaa darteed nil buu kuu saaraya laakiin maadaama roowyada qoraaladu dad ardaydu ku qoran yihiin aanu highlight garan iyaga weli heightkoodu dherarkooda ballacoodan kan xagga markii loo eego dhinaca loo kala bixiyo weli waa intiisii 0.48 centimeter wa okay kaasaan xooga kordhinaya fiiri 6 baan gaarsiiyey waa kala bixiyey highlight ka qaad meel uun kili kare waaw qurux buu soo baxay uu kala balaartay soo maad uu kala balaartay maad okay now kan hoose asagana sidoo kale aan u samayn aanu tagno xagee joognaa weli layout baan joognaa layout menuga layout baan tagnay hadda number baan ku jiraa numberka aan yareeyo waa kan kursiga waa kan yare too much because sizeka marka hore aan soo dejinaynay waanu wada baxay keena yare itemka waa maxay xoogaa kordhi itemka isaga ku dar xoogaa haye boos soo yare booska uu uma baahna intaas oo dhan inuu meelaha ka dhig 2.8 centimeter nooca yare isaga okay kan kore markaa number item ka xoogaa aan kobciyo xagga heightka okay kuwana sidoo kale highlight gare sidii aan nidhi waxaan wursiga wuu ka tegey soo maaratid heightkii baa jooga heightka marka simply ku dar xoogaa waa maxay inta 8 baan gaarsiinay soo ma okay 0.8 centimeter good baan xoogaa wuu kala balbalaartay wuu quruxsan yahay kaa ugu dambeeya waa maran yahay waxba kuma jiraan sidaa darteed waa ka takhalusi karnaa soo maaratid kaas shanaad oo ugu dambeeya maarka waxba kuma jiraan marka si uu quruxsanaado sida kuwa kore oo kale tirtir halka adoo jooga simply waxaad tagtaa delete waa delete ku dhufo delete cells no waxaan tirinaa delete row waa rowgaas oo dhan hoos oo dhan buu la kacayaa rowgaa hoose ku dhufo bac buu cunay khalaas waka marka highlight ka baxay meesha ka baxay waxaan kusoo noqday home automatic home baan kusoo noqday because waxaan waa default itemkii hadaayay layout jiray maba haynaba wuu ka baxay meesha maarka insert markaad tagto hataa ma yaalo laakiin markaad dhex gasho tableka dhexdiisa ayuu soo baxaya layout mains yaa soo baxaya layout ku dhufo marka size layout ka noo yimi so markaan ku dhex jirno tablekan ku dhex jirnaa hadda environmentiga tablekan ku dhex jirnaa okay now waxaan rabnaa hadii la idmo meeshaan inaanu qof ku darno hadda numberka shanaad baan joognay qof baan ku daraynaa simple waxaad taabanaysaa tab waka sizekuna waa isku mid buu noqonaya kii hore noqonaya markaasna number 6 arday cusub baa soo galay ku dar ardayga maxaa la yiraahdaa deeqa axmed saciid waka xilliga la qoray bishii afartii bishii saddexaad 2014 kalaskee tahay A1 weye yaa macallin ah jaabir macallin kale xataa macallinka badnaan kara ku dar mid kale waka wuu soconaya waa wadaysa halkaa kasii wadaysa ka bax waa ka baxday markaa ka baxdo khalaas waxaad ku noqotay sida standardkii caadiga home baa tagtay normal marka hadda table in la sameeyo waka markaa ku dhex jirto tableka waxaan nidhi layout-gii baa soo baxaya insert table haddaad tagto waa meeshii aan ka samaynay insertiga layout-ka haddaad tagtana waa meeshii aad ka bedelaysa heightka iyo rowga iyo widthigada sizeska aad ku kala hagaajinaysa waxyaalo kaloo badan baa ku jira split cells iyo insert above insert below
kanoo kale waxaa loo isticmaalaa haddaan rabo inaan geliyo row inaan geliyo kan ka sarreeya halkaa foorka meesheeda baan rabaa inaan row geliyo oo qof dhex geliyo okay marka wakaasa haddaan rabno rowgaas mid kore inaan gelino waa kan insert above iyo insert below macni waxa weeye rowga insert above kan kore geli ku dhufaad waxaan ku dhufanay waa kan row cusub baa noo soo baxay numberkii 1 2 3 mid baa soo baxay row cusub waa inaan nambarada bedeshay noqonaysaa marka oo aad nambarkan gelisid qof laga booday oo kale nambarkii waa tirtirayna hadda uma baahnin rowga tirtir mar kale insert above insert below waxa way kan belowna waxa way foorka ayaa bartiisa joogaya hoostiisa ayuu gelinaya waka foorka hoos buu gelin kuwan insert left iyo insert right iyaguna waxay ka hadlayaan in columnskay ka hadlayaan haddaan rabo column inaan ku daro insert right haddaan iraahdo waxaan rabaa numberka iyo magaca dhexdooda inaan geliyo column geliyo oo wax kale aan ku qoro marka waxaan leeyahay insert right waka column baa ii soo baxay dhac wajida markaasaan columnkii wixii ku qoraya aan ku qori lahaa waxaan ku qoraa waalidka oo kale waan ku qoraynaa halka ma haddaan doono samayn kara waalid waa noo buuxinaysa hadda uma baahnin waa tirtiraynaa isagana delete hadday row baan isticmaalinay hadda waxaan isticmaalinaa delete column hadda waa column waxaan tirtiraa halkaa column aan joogo way khalaas waa tirtir tanna maxay tahay insert leftina waxa way columnka aan joogo ayaa midigta u dhaqaaqaya bartaas uu taagan yahay kanuna waxaa ka soo baxaya hadda number oo kale markaad joogto oo tiraahdo insert left numberka ayaa bartiisa joogaya numberka ayaa durkaya oo magaca xagiisa raacaya gadaalna waxaa kasoo baxaya mid kale column baa kasoo baxay soo isagana naga tirtir delete column ku dhufo mar walba hadhow iska ilaali row adoo column u socdaa row tirtirto waa khatar waa inaad joogtaa columnka aad tirtiraysid isaga hadda kaa maran baan joognaa delete column خلاص سيزن kusoo noqdo wajid marka waa kaa meel cidla markaan ku dhufto maxaa soo baxaya sida caadiga kusoo noqonaya markaan ku dhex jirana waxaa soo baxaya layoutkii iyo hawlihii insert iyo wixii aan rabay oo dhan design iyo hawlo badan waa arki doonaa design iyo wixii marka hadda halkaa hanoo joogo hadda rowgan kale aan ka tirtiro kan ka tirtir meesha rowga haddaan rabo inaan tirtiro waxaan sameynaya layout baan tegaya delete baan leeyahay delete row baan dhahay haddii kaleeto rowgi ma joogaa horta iga hubi isagaan joogaa soo maad haddaan afarta joogo delete row iraado waa maxay afar baa iga tegaya iyo qofkii Yuusuf Axmed iyo wixii marka rowgaa maran tag dul istaag delete row waa kaa uu ka baxay meesha okay maxaa marka noogu xigay halkan save baa noogu xigtay save garee waxaan ku save garaysanaynaa xaggee baro word horaan u doortay oo ii joogay samaynta shaxda عشرة أفراد أنا عشرة أفراد أنا ما يعرفون بعشرة أفراد وأنا بحية سيف بان له يسيف كريم خلاص تيبل كي مركب واكاس شحدي ساز الله سمينيا وعلى عشو فيري كبارندك إن شاء الله تعالى أنه أهاته 10 كله وحلقة زي نواسي سعودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته